بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا ونكسن دمانتي ميل كستو aad kaga jirta halkan waa madasha sigisti oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaaliya. wararka lagu kala qaato waxaana ku kulma qurbo joogta Soomaalida. waxaa maanta madasha martiin ugu ah madaxweynihii hore ee Khaatuma Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo aanu kala hadlayno magaalada Nairobi isagoo ku sugan. madaxweyne ku soo dhawow madasha 60. bismillah wasalaatu wasalaamu ala sayidina Maxamed. ilaahay baa mahad marka hore waxaan mahadnaq u jeedinayaa qoladiina madasha soo abaabushay ka shaqaysa daraynaysa inay joogto uga dhigto bulshada Soomaaliyeed inay wacyigelintiisa daraha Soomaaliyeed hadba wixii markaa taagan ay ku wacyigeliso. waxaan gaar ahaan hadibkeeda leeyahay Farxaanka Axmed Farxaan oo wareysanaya iyo ninka la yiraahdo Asad oo aniga imika soo xiriistay hadda iguma horeysa madasha aan dhowr jeer ka dadaalka uu ka sameeyay hadibkeeda leeyahay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed inuu door ka qaato. dhageystayaasha waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. baan idin leeyahay waan idin mahad celinaya. waan ka baxay. waad mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waan idin salaamaynaa insha Allah tacaala. wareysiga maanta wuxuu dhex mari doonaa madaxweyne hore Khaatuma Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel. waxaa idin wareysan doona aniga oo ah Farxaan Axmed Nuur. halkan waa madasha 60 oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadda Soomaalida. madaxweyne waxaad nooga warantaa su'aasha ugu horeysa guud ahaan siyaasadda Soomaaliya. intaan ka warhayno xamar baad ku sugnayd, Nairobi waad joogtay ilaa Khaatuma. gebi ahaan gebi dhacleynta siyaasadda Soomaaliya iyo doorashooyinkii iyo xaalka halku marayo si kooban waxaan marka hore ka cudur daaranayaa hadibkeeda xabeeb ay hayso maxay ahaaytay 3 maalmood baanu shir marathon galay codkaygu hadii uu idin deeqo waayo waa idinka raali gelinayaa. marka hore haddaan jawaabta u soo noqdo xamar iyo barnaamijka siyaasadeed ee yaalla hadibkeeda leeyahay ma fadhiyo markaan run ka hadlo. laakiin aan mid idin sheege dalkan burbur baa ku dhacay dhinac kasta saameeyey, siyaasadii saameeyey, noloshii ijtimaaciga ahaa saameeyey, oo maxay ahayd nabadgelyadii saameeyey. markaa dib u soo celintiisu hadibkeeda leeyahay wax maxay ahayd just like that markiiba ku dhamaanaysa ma aha. waynu daaladhacaynaynaa dad badan oo caalamka ahoo u dhaqmaya baadida nin baa kula deedayay daalla kaa badine iyaguna way jiraan oo hadii aan doonahayn inaad heshana daaynaabadkaaday way jiraan. marka caqabado badani way jiraan laakiin in maxay ahayd ku talagalka markii hore inkastoo anigu berigii horeba maxamed ahaan aan arkayay 4 sano gudahood inay Soomaaliya ugu diyaar garoobaynin one man one vote. sana haddii alla kuusaba ogol yahay hadday 4 sano dib u dhacday waa 4 sano oo dambe oo keliya hadday dib u dhacday anigu alxamdulilah baan taagnahay. imikana in wax la doorto haddii dadkeeda leeyahay waa lagaba maarmaan. wejigii ama qaabkii ay ka fursan weyda mar haddii aan doorasho codihii oo xalaalihii ayaan jirin. iminkana waxaan u malaynayaa aniga fikirkayga weli ma maqal baaq rasmi oo soo baxay laakiin waxaan u malaynayaa 20 August doorasho baarlamaan oo iminka sida iloo muuqata 20 casho inaga xigta ama 25 casho markaad aragto qaabka diyaargarowga uu taagan yahay inay suuragal ahayd kullaba inay couple of months dib u dhacayso waa ama bil ha ahaato ama laba ha ahaatee hadday sanadkan gudihiisa kusoo gabagaboodo anigu alxamdulilah baan taagnahay. waxa ciyaaraya maxay ahayd aad stakena maxay ahayd maaha Soomaalida keliya waxa ma dib u dhaca ama hore u dhaca dhigayaaye waxa weeye stakeholderska oo dhan ajnabi ha ahaadeen dhaqaalihii shirka lagu qaban lahaa ha ahaado qolyaha kale dalaynaya ha ahaado innaga gudaheena oo aan diyaar u ahayn ama formationkii muxuu ahaa stateska oo aan wada dhammaanin ama hadidkeeda leeyahay beelihii haddii la yidhi wax lagu qaybsado beelaha qaarkood beelo kale loo xambaaray hadidkeeda leeyahay waxay ay lahaayeen waxyaabahaasoo dhan baa contribute garaynaya in aan weli maxay ahayd 20 August inay suurtagal ahayn in wax qabsoomaan laakiin hadda sanadka gudihiisa ku dhamaadaan anigu waa ku qanacsana. aad baad umahadsan tahay. waa jawaab waafi aan malaynaya. haddaan hore ugu sii socdo su-aalahaygii mudan madaxweyne waxaa jira shirkan adnaad carab ku dhufatay shalayna qodobadaad ka soo saarteen ee Khaatuma uga socda Nairobi. muxuu ku saabsan yahay shirkani? yaa soo xaadiray? wuxuu ku saabsan yahay shirka kale haddii alla kuusaba ogol yahay organization iyo institution kasta oo jira oo weerab caalamka oo dhan haddii dadkeeda leeyahay shirar maalmeed iyo howlqabad maalmeed iyo kuwo periodic ah oo hadba xilli la qabto haddii dadkeeda leeyahay way jiraan
kuwa la qabto duruufo gaar oo markaa abuurmay ay keenaan waa jira. shirkan wuxuu ku saabsanaa xaaladda khaatumo haysataa aad bay u adag tahay, aad bay u cakiran tahay. amnigii maxay ahaaytay siyaasaddii deegaanka khaatumo dad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhul ahaanba culays fara badan oo aan meel kale oo Soomaaliya leedahay oo uu saaran yahay aysan jirin baa fuushan. waxaa kale oo jirta xilli maxay ahaaytay kala guur oo transitional ah oo geedi kale ama meel kale ama qaab kale ay rabto ummadda Soomaaliyeed inay u guurto. dowladdii hore xilligeedii baa soo gabagaba ah, mid cusub baa samaysmaysa. representation isbaadee jira maxay ahaaytay haddii alla kuu soo ogol yahay dib loogu celiyey aadan axsaab laga soo gelaya qabiilkii laga soo gelayo. muxuu ahaa waana la wada socoteen oo xayraadkii Soomaaliya meel joogtaba maxay ahayd meel lama wada joogno warna iskuma seegane. in deegaanka khaatumo haddii bidkeeda leeyahay waxyaabaha aada u dhibta badana jira ay tahay haddii bidkeeda leeyahay in taladoodii siyaasiga ahaydna meelo kale la saaray. marka waxyaabahaas oo dhan baa keenay inaanu haddii bidkeeda shirkan qabanno oo aanu haddii bidkeeda leeyahay bal sida aanu xaajooyinka ugu wajihnayn aanu maxay ahayd ka baaraan degno. waad mahadsantahay. yaad nooga carabaabi kartaa ama nooga sheegi kartaa dadkii soo xaadiray shirkan markii adiga lagaa yimaado? waxaan umalaynaya haddii bidkeeda leeyahay tviyada haddaad daawateen dadka waa arki lahaydeene. shirka waxaa jeergaraynay adugu magacyada xitaa wada garan maayo dadka meesha kasoo xaadiray. haddaan magaca garanayan iminka saan u wada sheegaya garan maayo haddii aan dhowr qof magacaabo. odayaal qurba jooga oo maxay ahaaytay oday abshir cawil cabdidiif uu kamid yahay loo jeergaraynayay shirka. muxuu ahaa odayaashii hore ee G6 la oran jiray qayb kamid ah. maxay ahaaytay golaha xukuumadda khaatumo qayb kamid ah. guddiyada maxay ahaaytay KDO ama forumka laftigiisa qaybo kamid ah haddii bidkeeda khaatumo forum iyo KDO haddii bidkeeda leeyahay guddiyadeeda madaxdooda qayb kamid oo guddoomiyihii guud iyo muxuu ahaa Minnesota guddoomiyaheedii iyo Sweden guddoomiyaheedii iyo haddii alla kuusama ogol yahay xubno xildhibaano oo federaalka ku jira joogay. waxaa joogay mas-uuliyiin kaloo dowladda federaalka ka tirsan. waxaa joogay haddii bidkeeda leeyahay jaaliyadaha haddaan dib ugu noqdo waxaa kamid ahay tii Nairobi. waxaa joogay haddii alla kuusama ogol yahay ururada bulshada dad kale oo kamid oo masalayay. marka haddii bidkeeda waa lagu dhamaa beesha. waad mahadsantahay. si wanaagsan baan u fahanay. aadna kaaga mahad celinayna. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa madasha sigisti oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha Soomaaliya. maanta waxaa marti inooga madaxweynihii hore khaatumo maxamed yuusuf jaamac indhasheel. haddaan hore ugu sii socdo su-aal kale mudane madaxweyne, qodobaa shalay soo saartay 9 qodob ah. madashana waa laga akhriyey, warbaahinta Soomaalidana waa loo qaybiyey. dadku marka qaar badan baa confuse ka qaaday. waxay yidhahdeen ma maamulkii khaatumaa soo saaray, ma mujtamacii khaatumo bulshadiiba yaa soo saaray qodobadan? maamulkiisa sida carab baabtay xubnaha nagala joogay baa tiri. waayo qaar baa isweydiinayay madaxweynihii ma joogin, baarlamaankii ma joogin, madaxweyne ku-xigeenkii ma joogin. yaa represent garaynaya dowladii khaatumo? yaa la oran karaa baa soo saaray qodobadan? qodobadan waxaa soo saaray dadkii madasha yimid madashan wada tashi haddii bidkeeda leeyahay joogada qodobada soo saaray. saan hore idinku sheegay xukuumadda khaatumo maaha madaxweyne iyo ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan maaha. xukuumadda khaatumo de way ballaaranta wasiiray leedahay oo waxay leedahay haddii bidkeeda leeyahay muxuu ahaa maxay ahayd dee qaybo kale oo kala duwan. xukuumadda madaxdeeda sare ma aha. waxaynu hadda jir isku confuse garaynaa. maamul meel ka jira waxaynu u naqaanaa ninka u sarreeya oo haddii bidkeeda inuu uguna horeeyo uguna dambeeyo isagu. marka wasiiro ka tirsan waxaa joogay oo dowladda wakiil uga ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada arrimaha federaalka ayaa joogay haddii bidkeeda leeyahay oo wasiir cabdikariim faarax dhaaye la yidhaahdo isagaa wakiil uga ahaa. waxa soo saaray qodobadan aad sheegaysaana waa dadkii madasha isugu yimid. markii aanu gabagabaynay baaqii soo saaray dowladda waa la hadalay madaxweynaha ku-xigeenkiisa ra-iisul baarlamaanka iyo wasiirada iyo xubno kale oo golaha fulinta maxay ahayd haddii alla kusama ogol yahay baarlamaanka ka tirsan iyagoo meeshooda fadhiyaanu la hadalay. waan u akrinay
waxay isla qaadanay haddii midkeeda leeyahay in ay nagu waafaqsan yihiin qaabka kale haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa markii hore ay shirku soconayeen iyagaaba representation lahaa oo cidi soo dirsaday markan dambe go-aamadii soo baxayna waa haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa checklistki waa isla wada waafaqnay haddii midkeeda leeyahay waad mahadsan tahay si waxaan baan ufahanaan umalaynayaa jawaabta haddii mid kale still waxaynu ku dhex jirnaa arrimihii shirkii ka socday wadatashiga khaatimo uga socday magaalada Nairobi ee adiguna aad qaybta ka ahayd qodobo 9 baad soo saarteen qaarkood ma cusbayn oo qodobo alaaba Soomaalidu ay maqlaan ama shirka ka soo saaran baa laakiin 2-3 qodob baan ka soo qaato oo dadku ay aad u qaada dhigayeen ilaa shalay tool waxaa ka mid ah cid kasta oo danaha khaatimo galaan waanu kala hadlaynaa maxaad uga gol lahaydeen qodobka adaan su-aal kugu soo celinayaa farxaano hadday cidi dan kaa gashay sidaad yeeli waxa weeya sidaad yeelaysaa caqliga saliimka ina tusaya waxa hadday ciddi dani kaa gashay baabaad ula wada xaajooto inaad samaysato waxaan idin aan maxay ahayd israacsado haddii su-aashan ku weydiiyey anaa dib uga jawaabay haddii alla kuusama ogol yahay waxaad la socotaan deegaanka khaatimo gol ahaanna in cidi booftay wuxuu ku booftay weliba iminka ay ka wada haddii midkeeda leeyahay inay tiraahdo doorashooyin iyo waxbaanu ka diiwaan gelinaynaa iyo doorashooyin baanu ku qabanaynaa waxaad ka warqabtaan deegaanka khaatimo taladiisii siyaasiga ahayd masiiriga ahayd inaan khaatimo hoggaankeeda siyaasiga loo gacan geliyey haddii midkeeda leeyahay hadda iyadoo weliba la yidhi beelo Soomaaliyeed wax lagu qaybsanaya in beelo kale dhakada laga saaray warnusan kuba dhufta carabka Puntland asaaskeedii haddii alla kuusama ogol yahay beesha khaatimo haddii midkeeda Soomaaliya sanadii caydinta dhabar bay ka ahayd asaaskeedii iyo jiritaankeedii laakiin anoo aan tafaasiil ku noqonaynin 2012 waa tii la yidhi intay isugu yimaadeen talix isugu yimaadeen oo adigu aad joogtay farxaano la yidhi haddii midkeeda leeyahay maamulka gaarka ah intay sheekh iyo shariif iyo ilaaw iyo luglawaba isugu yimaadeen waa kuwii anagu waxaasaanu samaysanay iyadoo ay taasi jirtaa waxaa imika lasoo dhigay la yidhi 98 ciddii wada samaysatay taladeeda siyaasiga waxay ka go-aysaa haddii alla kuusama ogol yahay galoway ka go-aysaa waxaa kale oo jirta beesha federaalka iyo tan caalamka midna inuusan haddii midkeeda leeyahay baaqyadayadii iyo qayladayadii iyo maxay ahayd beesha federaalka iyo xukuumadda federaalka inuusan haddii midkeeda leeyahay dhagjaala qufin marka inaanu la xaajoono af ama ha ahaato ama hadday ka fursan weydo adin ha ahaatee ciddii dana naga dhaxaysa inaanu wada xaajoonno qaabkaanu ku wada xaajoonaynaba dee waa mid noo furan waad mahadsan tahay aad iyo aad si wacan baan u fahanay waana jawaab waafiya waxa weeye qodobada kale oo dadku ay isha sida gaarka ugu hayeen waxaa ka mid ahaa arrin aan hore looga baran inuu ka soo baxo shirka khaatimo oo kale waayo waxaa la arki jiray iyadoo la yidhaahdo dhaqaale ha la ururiyo dadka ha la mideeyo shir ha lagu baaqo arrimaha caynkaas ha loo diyaar garoobo doorashada ka qabsoomi doonta dhammaadka sanadkan waddanka Soomaaliya reer khaatimo ha u diyaar garoobeen dad badan baa macnaha aaraha kala duwan ama ideooyin kala duwan arrintan ka bixiyay ama fasiraado kala duwan baa lagu fasiray muxuu ahaa qodobkan ku cusub saaxadan saxaafadda Soomaalida aad soo saartay salay iyo de anigu haddii midkeeda su-aasha runtii waa la yaabanahay waxaanu la yaabanahay haddii midkeeda leeyahay saynu wada ogsoonahay Soomaaliya maxay ahayd inay haddii midkeeda leeyahay doorasho gasho oo dawlad dhisato oo heer dowlad goboleedyo iyo heer federaalba ay haddii midkeeda leeyahay may dowlad goboleedyaan odhan dowlad goboleedyada structurekoodii wuu jiraa laakiin baarlamanadan kasoo gelaya haddii midkeeda leeyahay ee dowlad goboleedyada ka imanaya iyo dowladdii dhexe federaalka ahaydba in muxuu ahaa in la dhisaa jirta yeelahaana sidan aan kuu sheegay tacaddi baa lagu sameeyey haddii midkeeda leeyahay waxaa la yidhi idinka oo maxay ahayd haddii midkeeda leeyahay beesha deegaanka loo yaqaano khaatimo la yidhaahdo haddii maamulka khaatimo waa lagu soo lahay dowladda federaalka haddii midkeeda leeyahay diidda inay aqoonsato weji beeleedna waxbaa lagu qaybinayaa baa la yidhi marka waxaanu taaganahay annagu oo qofka kan macnihiisu uu yahay haddii la yidhi waa wax beele ay qaybsanayaan waxa kan aanu ognahay aynu wada ognahay in beel weliba iskeed haddii midkeeda leeyahay ee waxeeda inay uga tashato misaalaan ku siinaya waxaa jira baarlamanka federaalka lasoo dooranayo meelaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah shakhsiyaad hal shakhsi oo keliya
oo yidhi anigu baarlaman baan kasoo gelaya oo beeshiisii yidhi haddii alla kuusan ogolaya meeshii ay ku qabsan lahayd shirka kasoo dhaadhiciyey intuu diiday oo yidhi aniga waxaa laygu qabanayaa meel heblaayo aniga jifilayda waxay igu qabanaysaa meel heblaayo soona garati maaha marka mar haddii wixii aanu mudnayna la marin waayey inaanu haddii midkay leeyahay haddaanu beesha ka nahay u diyaar garoodo sidii haddaanu faraha ka laabano aanu nidhaahno haddii midkay leeyahay maxay ahayd waxaweydayan ka qayb qaadana ama ciddii wax soo magacaabanaysaa ba iska soo magacaabatay haddii midkay leeyahay aynu faraha ka laabano iska aamusno annagu waxaanu ka door bidnay inaanu ku dhiidhino oo maxay ahayd haddii midkay leeyahay sifihii kaste aanu dadka noo masalaya dawladda dhexe mar haddii anaga dawladda iyadii noo gaarka in la aqoonsan waayey inaanu mid annagana masalo aanu soo xulanay inay haato qaabka laga hadlaya waa qaabka waanu isimadayada ugu baaqayna waanu kuwa wax soo dooranaya kontonka qofa ugu baaqayna waanu cuqaasha kontonka qof soo xulaya ugu baaqayna waanu ugu baaqaynaa ninkii kasta ee hunguri ka hayo inuu haddii midkay leeyahay tartanada ka qayb galo waa ka baxay waad mahadsan tahay waa jawaab waafiya wey halkayd nagala socotaan weli waa madasha sigisti maanta waxaa martiin ugu ah madaxweynihii hore khaatumo maxamed yuusuf jaamac indhasheen isla su-aashii weeye dhinac kale aan kaga imaato maxaad ugu jawaabi lahayd madaxweyne mudane dadka qaba ama markay qaadaa dhigayaan fikradaha noocan oo kale sidan u dhigaya khaatumo ereygan iminkaa saraxday waxay uga dan leedahay musharax bay wataan oo sanadka xagga sare ay taargidsanayaan sidee bay suuragal u tahay iyagoo aan maamul goboleed lahayn xagga sare inay taargidsadaan iyo kuwa odhanaya arrinkan wuu isku xidhan yahay dadka waan la hadlaynaa iyo doorashada ha loo diyaar garoobo way isku xidhan yaho waxay khaatumo isugu geynayaan awoodoodii halkii awal ay khaatumo iyo maamul goboleedka saari jireen inay soomaaliya ku hogaamiyaan soomaaliya inaanu hogaamin xaq baanu u leenahay waayo waxaanu nahay soomaali baanu nahay weliba soomaali ku dhiban soo jiritaanka soomaalinimada horay ugu soo baaba'day haddii midkeeda leeyahay oo la og yahay halkankii daraawisheed inta ay haddii midkeeda leeyahay dhib iyo maxay ahayd dhimasho iyo dhiigba usoo ay ula soo kulmeen iminkana laftigeedana tii aanu ugu difo haddii midkeeda leeyahay maxay ahayd marka inaanu doono shaqada u sarraysa haddii midkeeda leeyahay hoggaanka soomaaliya doorta xaq baanu u leenahay laakiin qabashada shirka yaga kani ma ahayn mid u jeeda inaanu haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa aanu candidate maxay ahayd madaxweynenimo u tartama inaanu haddii midkeeda leeyahay aanu isugu nimid madaxweyne qofka u tartamaya ee beesha sooliya sanaag iyo cayndayta ka soo jeeda waa shaksi taageero dadkiisa wuu uga baahanyay ummadda soomaaliyeed oo dhanba hawsha waanu meesha ku gorfaynayni waxay ahayd wax danta khaatuma aad baad mahadsan tahay guddiyaad magacawdeen shalay sheegay 12 xubnood inay yihiin oo iyaguna guddiyo usii kala bixi doona shaqadooda maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa 3 guddi bay u kala baxeen 3 guddi baanu iyo 22 guddi loo sii kala qaybiyey guddi waxaa la qaabilsiiyey inuu la yimaado barnaamij cusub oo xoreyneed iyo sidii maamulka xukuumadda loo tayeyn lahaa guddina waxaa haddii midkeeda leeyahay loo xil saaray in uu turxaan bixinta iyo isu soo dhaweynta beesha reer khaatumo guud ahaan iyo maxay ahayd wixii loo arko in lagama maarmaan ay tahay wadaxaajood cid kale lala galaa markay habboonaato iyo haddii aanu aragno in maxay ahayd ciddaasi iyada laftigeedu ay danaynayso haddii midkale wadaxaajoodka markay habboonaato iyadana inay galaano barnaamijka iyaduna inay soo breakdown kusoo sameeyaan qolana waxaa loo diray barnaamijkan maxay ahayd transitionalka ah dawladda xildhibaano lagu soo dooranayo ee dawlad cusub lagu soo dhisayo ee haddii midkale leeyahay madaxweyne lagu dooranayo sidii ay maxay ahayd waa la neglect gareeyay markeeda ku celiyey muxuu ahaa maxay ahayd beesha khaatimo waa la neglect gareey gabagabadiina waynu joognaa barnaamijka halkaad weli nagala socotaana waa madasha sigisti waxaana maanta martiin ugu ah madaxweynaha hore khaatimo mudane maxamed yuusuf jaamac indhasheer oo khadka telefoonka kaga jira magaalada nairobi su-aal baa kasoo dhex baxaysa su-aalahan guddiyada waxaa kamid ah qayb kamid a waxaa tiri waxaa loogu talagalay maamulka inay tayeeyaan dib u xoreyn iyo tayeyn iyo midayn arrin caynkaas xukuumaddii miyaad casisheen xukuumadda arrimaha u xil saarnayd tayeynta dadka midaynta
dib u xoreynta iyo wixii lamida xukuumaddii aaway xukuumadda intayda nairobi isugu timi marka hore maanan dooran farxaano bulshada reer khaatumaa dooratay wakti baa la siiyey hawshoodii bay wadaan laakiin maxay ahaaytay duruufaha jira awgood annaku waxaanu soo jeedinay afkaar barnaamijyaanu soo jeedinay barnaamijyadaana cidda maxay ahaaytay haddii alla kuusaba ogol yahay marjaca u ah ee ay ku noqonaysaa waxa weeye waa maxay ahaaytay waa xukuumadda soo waran garateen maaha barnaamij baanu soo samaynaynaa marka barnaamijyada aanu soo abaabulnaa haddii midkeeda leeyahay ee ka soo shaqaynaa ilaa annaguba dadkii ay xukuumaddu adeegsanaysay maskaxdii ay adeegsanaysay baanu nahay haddii alla kuusaba ogol yahay iyadaa lagu celinayaa ma aha inqalaab lagu sameeyey iyada okay waa tiluuda xukuumadda dhex marinaya aad iyo aad baan u garan waxaa jirtay shir dhowaan lagu qabtay gebagabadiina waynu joognaa mudane madaxweyne magaalada Awrbogays oo halkaa la yidhi waxaa lagu kala saxday Somaliland iyo deegaamada yacni magacyo kala duwan baa kolba la sheegayay dadkii beerihii deegaanka degan ay ku kala saxdeen heshiisyo iyo waxaankaas qodobadii shalay soo saarteenna kuma jirin wax cambaarayna iyo taageero midnaba isla soo qaadeen arrinka isaga haddaanan khaldanayn maxay ahayd anuu meelaad wax ka akriday emoji garan maaye press releaseka markii aanu samaynay ee la hadlayey si weyn oo macno badan oo faahfaahin leh baanu uga hadalnay haddii midkii leeyahay qodob kamida buu ahaa haddii qoraalka maxay ahaydtay uu qalin ka booday anigu garan maayo haddii midkii leeyahay waayo waxaan ogaa press releasekaan fadhiyayo wixii aanu ka akriyaynay baan ogaa haddii qoraalku maxay wax ka boodeen haddii midkii leeyahay waa erer xagga bahalka laakiin waanu ka wada hadalnay waa ka soo saaray waa haddii midkii leeyahay mashkaladaha ugu weyn ee ugu culus aanu haddii midkii leeyahay inaanu ka hortagno aanu diyaarka u nahay beesha maxay ahaaytay ama shirka Awrbogays ka dhacay waynu ognahay inuusan represent garaynaynin beesha degta ama ay lahaayeen waynu degnaa hadday dhaqan noqotana madaxii dhaqanka ee ugu sarreeyey ilaahay maxay ahaaytay caafimaad ha siiye oo dee xanuun u jooga aynu ognahay abudabi xanuun u jooga waa ka sida waafiga ah maxay ahaaytay aan waxna dhimin waxna dhaafin uu uga hadlay hadday tahay bulsho weyntii haddii alla kusaba ogol yahay waa kuwa dareenkoodii ku muujiyey isla iyadoo shirku socdo lagama waayo bini aadamka 4 3 5 qof oo inta haddii midkeeda leeyahay waynu naqaana farsamooyinka ay adeegsadaan maamulada hareeraha naga xiga ee dhibaha loogu waaweyni haddii midkeeda leeyahay dadka lagama waayo dad haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa barnaamij la marsado laakiin wax beeshaasi ay diyaar u tahayna maaha wax suuragal ah inay ka dhacdaana maaha diyaarna uma nihin sifihii kasta aan uga hortegi karaynana waa kaga hortegayna waad umahadsan tahay barnaamijka gabagabadiisa waynu ku jirnaa mudane madaxweyne waxaana ku siinayaa fursad dadweyne Soomaaliyeed baa ku dhagaysanaya oo 200 kor u dhaafaya adduunka dacaladiisa kaga jira ayna qayb ka yihiin dadweynaha bulshada reer Khaatuma ay qayb ka yihiin waa maxay kelmadda aad doonaysa inaad baahaysaa maanta kelmadda aan doonaya ee aan baahiyaa midna Soomaali weyn bay khusaysaa midna beesha reer Khaatuma ay khusaysaa beesha reer Khaatuma ku horeeyay waxaan leeyahay beesha reer Khaatuma haddii midkeeda leeyahay geedi baa lagu jiraa maanta ama mid innaga inoo gaara ah ama mid Soomaali weyn aynu la wadaagnaa waxaa fiican oo ila qurux badan in haddii midkeeda leeyahay geediga sidaynu reeraha meesha aynu rabno u gaarsiin lahayn hadda ogoobay haddii midkeeda leeyahay nolosha tantaala ama innaga waxa ama madciga aynu ku jiraa ee inoo gaarka ee ummadda Soomaaliyeed inala wadaagin mid 1 2 3 ku dhamaanaya maaha haddaan samir loola iman haddaan wadajir loola iman haddaan khaldamo oo hoggaanku khaldamo in la saxo aan lala iman haddaan maxay ahaaytay maskax iyo muruqba la midayn oo inta la buulgareeyo ujeedka aynu leenahay dadku malaa'ig maaha oo madaxda aynu dooranaa ma aha malaa'ig ku khalad bay yeelan karaan haddaynan sixin ee aynu isla soo taagno haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa aynu dabada laad kaga tiidnaye ka baxayna aynu sida samayno haddii alla kuusaba waxay noo soconaye midnibaynu wax ku hagi karraa midnibaynu ujeedooyinka aynu leenahay aynu ku gaari karraa aynu danteena meel ugu soo wada jeesano misaal yar baan idin siinaya mashruuca ka masalan xildhibaanada soo doorashadeeda annagu waxaanu istusnay niman baa maanta isoo weydiiyey oo igu yidhi maxay ahayd waxaa loo muuqatay intiina meesha joogtaaba inaad wax wada doonayseen
وهذا وحوض الدور هرت المكان اللي انت تبوح هو الدور يعني مكانه ده كسر لشني لكن أفرنت يدين كشيء أنا أقول حلو دور لما انت فيتش ولا انت يدين ماشى تري كراسي أي دور يعني عندي دور سبب حق على تيه ورت إلى الكراسي ده تن يعيد مش اللي نقول مثل هذين أنا نقول ثلاثة دين أنا يلا حتى أنا لا ليش خاتمتك ده إذا الله عليه عندي دور سبب حق صباح ده مركا إنه نتاكا وضع شقينه وكديجا إنه دجال إنه كل شيء هذه كده ليه قلنا هذا شيء شوفتك maxay ahayd inaga jirta galbeedka inaga jirta dagaalka aynu kula jiro aynu meel uga soo wada jeesano oo aynu joojino haddii bikale balga yara la soo walaye maxay ahayd haddii alla ku soo ogol yahay muxuu ahaa kamarada oo maalinta lagaaga muraad leeyahay kamarada oo inta lagu horkeeno lagaaga waxasanaya kadibna haddii bikale leeyahay liin inta dhexdii laga cunay la tuuray aad noqonayso inaynu joojino ودتكنا كوار فاسكرنا وقرب جوكتي وحي كليين عليسكودي ميسان كودي كليين لها جودها تشوجين أي أفريقيا الصغيرة إن كقيب قاطان وسوق نفسه مفكر يمرغبا هو قيب قاطان تقال الله عمل دباتوين كقدح إنك قدح لأن بيلهن سيدا لقيم سيدا التلاح هدي بكذلية إن نبقى قاف وفر النو هدين قرب جوج لهاي أي له هدي قال لك وسوي وقول لي هاي كوضع قيب قاطان وميل وسوي ذا تشنو سيدا نتبقى لأن نحن نقول هدي بكيلو بديلين ومدى الصوماليين إنه حنكذب بحيان ليه الصومالية هدي بكذلية هاي المحوها حدي بخير بربرة بينه له ودي بينه سوء كمان إنه المشكلة بقى شفتها إما كان ليلو سمي قررنا مدي الصوماليين افتضع لك الله أقول رفض وحال ليلة سوي إنجليز كبير وأنا وحولي شري فلسفة دي قيبي وحكم لكن هنا باليفين حتى سوي الحياة هدي بكذلية هاي ayuu oran jiray maanta waxa la sameeyay waan ku dhiiranayaa qabiilkii oo la yiri dawladaha tihiin oo hub la siiyay oo la yiri dhaqaalaad qaadanaysa oo ujeedka kaliya uu yahay qabiilka kale ee dariska ay yihiin inuu ku jeesto waxa la sameeyay in qowmiyad Soomaaliyeed aan hadii bidkeeda leeyahay cid ka hadlin anigu waxaan oran lahaa oo ummadda Soomaaliyeed kula talinaya war sidii ay qowmiyad Soomaaliyeed ku soo noqoto oo aynu beledan iyo baaskan iyo 4.5 kan iyo 60 qabiil la yiri dawladaha tihiin oo cid ay isku qiisanayaan waxa weeyaan waa iyaga qolada ay dariska la tahay war sidii aynu uga bixinayn hadaa tihiin wax garadkii Soomaaliyeed muxuu ahaa ka damqan lahaa waxa kan ilmaada reeyaan sidii taa loo soo celin lahaa waqtigay doontaba ay lagu qaadatay yaa rajadeedu inaga gabine waa inaan isu dhiibin qaybintan iyo qolqolka leeno kala sameeyay الله هذه أدنى والدين سلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه يا بعض المخاطرات هاي دقيقة استيرسها حق سوق بكبرنا ورئيسي ما أنت الله يلني مدحوني هوري مامك خاتم مدن محمد يوسف جامع عند الشيل وتصلت تلفون الآن قلتي سنة سوى شو مقالة النيروبي وحايدين غادي ورئيسكاني بقى فرحان أحمد نور أنت ورئيسك المدلة ميدان كل مدن دقيقة استيال دمانتي وحالة دقيقة ناسيدا إيو نبات قلب